howlgalkan oo ciidamada xasilinta caasimadda ay xalay ka sameeyeen xaafadda Jungal degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayay amniga magaalada Muqdisho si looga hortago dhibaatooyinka ay bulshada u maleegayaan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. ciidamadu si gaar ah u feejignaa ayaa la arkayay iyagoo baaraya guryaha ku yaala xaafaddaasi isla markaana si fiican ula dhaqmayay dadweynaha ku sugnaa halka uu howlgalku ka socday. waxaana howlgalkaasi ka qayb qaadanayay maamulka degmada Yaaqshiid oo ugu horeeya gudoomiyaha degmadaasi. boqolaal qof oo u badan dhalinyaro ayaa lagu qabtay howlgalka waxaana la iskugu keenay barxad ku taala xaafadda Jungal ee degmadaasi halka inta badan la sii daayay kadib markii lagu sameeyay baaritaano. gudoomiyaha degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir Axmed Maxamed Xasan oo la hadlayay warbaahinta qaranka howlgalka kadib ayaa ka warbixiyay sida uu dhacay howlgalkaasi isagoo ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan degmadaasi inay la shaqeeyaan ciidamada amniga. howlgalkaas waa howlgal aan mataqaanaa ay degmadu iyo mataqaanaa ay dalbatay uuna tala galnay inaan mataqaanaa maxaa ku xasilino degmada inaan dadkana aan mujtamaca Soomaaliyeed ee degan degmadana aan ku dhiiri gelino barnana dawladnimada tusnana in loo shaqeynayo habeen iyo maalin saas ayuu ku saabsanaa maanta howlgalku ilaahay uu noogu leeyahay alxamdulillah. waxaa la arkay ciidamada oo mid u galay xaafadda Jungal kuwaasi oo baaraya marka howlgalka intuu socday maxaa lagu soo qabtay oo haddii dad ay yihiin iyo waxyaabo kale oo laga shaqeeyo. bismillaahir rahmaanir rahiim howlgalka waxaa lagu soo qabtay dad tiro badan oo gaaraya ilaa iyo 500 iyo mataqaanaa waxaan ugu tala galnay in mataqaanaa maxaa ay aan baarno wixii nabad darro ka wada degmada Yaaqshiid ama dhammaan gobolka Banaadir oo dhan iyo Soomaaliyaba inaan ka hortagno anaguna aan mataqaanaa maxaa qayb aan qayb ka noqono ciidamada dawladda xasilinta howlgalka ay sameynayaan inaan anagu mataqaanaa hormuudkuna maadaama aan shacabku anagu matalno si shacabka ay u arkaan in loo shaqeynayo dadkii aan soo qabanay ilaahay idankiisa wax hadda tirad wada kuma aan arkin waan qabanay waan baarnay waana insha Allah taala sii deynay waalidkooda ku qanacsan ayagoo bulshadii oo faraxsan ayagoo weligood habeen loo shaqeynayno in habeen loo shaqeynayo ay arkeen ayagaaba farxad muujiyay ballan qaadana inay la shaqeynayaan dawladda Soomaaliya degmadana ay la shaqeynayaan marka howlgal aad cajiib u leh ahaa. ciidamada xasilinta caasimadda ayaa inta badan waxay howlgallo ay ka sameeyeen degmooyinka gobolka Banaadir kaasoo wax badan ka bedelay amniga caasimadda iyagoo sii laba jibaaray howlgallada ka dhanka ah maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. Maxamed Xasan Cali idaacadda iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.